السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isu soo noqod wanaagsan daawadayaal. Waa Saad Cabdirasaaq Yacquub channel. Weli waxaynu ku dhex jirnaa barashada casharadeenii QuickBook. Casharkeena 11aad ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa ama uu noqon doonaa inta bills. Qaabkaad u xareysan lahayd biilasha. Waa maxay bill? Bill wuxuu noqon karaa sida alaabo aad soo iibsatay oo aad soo gadatay lacagahooda inaad xareyso oo qasnada ka baxday. Lacagtaas waxay ka baxday qasnadii. Waxaad rabtaa inaad lacagtii qasnada ka bixiso intaan la bixin ka hor waa in biil ahaan loo xareeyaa. Ama ganacsigaaga ama ganacsiga adiga kuu furan waxyaabaha lagu socodsiiyo sida nadaafadii oo kale ama korontadii oo kale ama kiradii oo kale. waxyaabaas markaad rabto inaad bixiso biil ahaan ayaad u xareynaysaa marka hore. Casharkeena maanta intaas ayuu ku saabsanaanayaa la socod wanaagsan. biil si aan u xareyno marka hore waxaynu gelaynaa qaybtan loo yaqaano vendors. halkan ayaynu tegaynaa. halkan loo yaqaano vendor. vendors markaad gasho waxaad gelaysaa enter bills. halkan enter bills loo yaqaan ayaynu tegaynaa. markaynu tagno enter bills halkan vendor waxaynu ka dooranaynaa qofkaas aad la tacaamulayso waxa uu yahay. haddii uu yahay qof aad alaab ka soo iibsatay waxaad ku qoraysaa xaruntii aad alaabta ka soo iibisay. haddii ay tahay shirkadii korontada ama TBA ama qofkii kirada guriga halkan waxaad ku qoraysaa magaca uu leeyahay. hadda inta waxaa noo taalo Hubal Trading oo ah vendor aan horey usoo xareysanay markaan casharka creating vendors markaan samayn jirnay ayaynu samaynay waa Hubal Trading oo kale tusaale. waayahay Hubal Trading ayaynu siinaynaa hadda lacagtan. haddii mid cusub uu yahayna add new ayaad leedahay qof cusub hadduu yahay. waayahay add new aynu dhahnaa hadda add new ku darsuu ku leeyahay waa tii aan soo marno kale qaybtii aan soo marnay oo creating new vendor. nidaamkii ayuu ku geenayaa vendor name-kii inaad xareysato macluumaadkii dhan inaad halkan ku buuxiso. waayahay aynu doorana marka Hubal Trading kadibna halkan memo waxaynu ku qoraynaa memo waa macna waxaad ku soo xasuusanaysaa dhow markaad baaritaan rabto inaad statementigii inaad ogaato haddaad u baahato. statement waxa waaye marka aad ogaanaysid dhaqdhaqaaqa xisaabaadkii markaad ogaanaysid si aad u aragto waxaas waxay yihiin. memo waxaynu ku qoraynaa lacago alaab lagu soo iibiyey oo kale. tusaale ahaan waa iska tusaale markaas waxa ku habboon aad u isticmaalayso ayaad halkaas gelinaysaa. amount tirada ay tahay halkan ayaad ku qoraysaa ama account waxaad ku qoraysaa ama ka dooranaysaa lacagtaas halka ay ka soo baxayso. casharkeeni 10aad ee aynu soo qaadanay qaabka waynu aragnay meesha lacagta ay noo galayso depositing meesha aan dhigayno waa qasnada dukaanka. halkan qasnada ah ayaynu ka soo bixinaynaa lacagtaas. waa qasnada dukaanka halkan ayay ka soo baxaysaa lacagta. waayahay aynu doorana marka halkan ayaynu furnay qasnada dukaanka ayaynu dooranay. markaad doorato amount tirada ay tahay waa 500 tusaale ahaan ka soo qaad 500. memo hadeeyan ayaynu soo aragnay waad iska dayn kartaa marka halkan customer job qofka la siiyey shaqadiisa maxay ahayd maxay shaqadiisa ahayd ama magaciisa muxuu ahaa. waayahay xasan ayaynu ka dooran oo kale tusaale ahaan xasan qaybtan. waayahay intaas markaad buuxiso waxaad leedahay save and close ayaynu dooranaynaa. save and close markaad doorato lacagihii biil ahaan ayaad u xareysay. marka habkaas waa sida loo xareeyo biilasha. casharkeena kan ku xiga wuxuu noqon doonaa paying bills. habkaad u bixinayso biilkii aad xareysay. hadda keliya waa in la xareeyaa biilashii. bishii ayaa soo dhow biilashii dhan in la wada xareeyo si loo bixiyo. marka intaas waa casharkeena maanta. asxaabteeni horey noola socotay aad bay u mahadsan yihiin. asxaabta nagu cusub ee na daawanaysana waxaynu ka codsanaynaa inay channelka subscribe saaraan oo ay share gareeyaan si asxaabtooda ula wadaagaan iyagana ay uga faa'iideystaan. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.